madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Dahar Aadan Cilmi Indha Qarshe iyo saraakiil kale ayaa maanta ka qayb galay munaasabada tababarka loogu soo xiriyay ciidanka danab ee xoogga dalka Soomaaliya kuwaas oo loogu talagalay inay ka howlgalaan deegaanada Galmudug. ciidankana ayaa loogu talagalay inay ka qayb qaataan xoreynta deegaanada ay gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab isla markaana ka hortagaan falalka argagixisnimo. in ka badan 70 askari oo muddo tababar ku qaadanaya xero ku taala magaalada Gaalkacyo ayaa tababarkani maanta loo soo gabagabeeyay. taliyaha ciidanka danab ee Galmudug Cabdicasiis Cabdullaahi ayaa sheegay in ciidankani laga soo xulay deegaanada Galmudug isla markaana loogu talagalay inay qayb ka qaataan xoreynta deegaanada Galmudug. halkan waxaa jooga qaybtii labaad horinta danab 12aad u soo xirma tababarku maantay oo u socday tababarku muddo 3 bilood iyo 10 casho ah ayagoo halkaan ku muujiyay wixii la baray aad iyo aad u qiimo badan. ciidankan oo ahaa ciidanka laga soo xulay deegaanada Galmudug markii hore laga keenay siyaasna ku yimid iyo qaybta kale la fadhido ka horeysay oo qaybtii hore aydo ka baxday 2018 ciidanka inta kalena ay jiraan xaruntii ay deganaayeen. waxaan rabaa taliya ciidankani waa ciidan u qalma inay maartay astaahila inay ka mid noqdaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya aad akhlaaqdoodu u wanaagsan tahay. aan rajeynayno inay cadawga dalka ku baahay ay maartay ka xoreeyaan. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Dahar Aadan Cilmi Indha Qarshe oo munaasabada ka hadlay ayaa aad u bogaadiyay ciidankani maanta tababarka loo soo gabagabeeyay. waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo muhiimada ay leedahay ciidankan danab oo idin xusuusiyo ciidanka danab weligeed dawladda Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed wuxuu u lahaa kaalinta koowaad buu ugu jiray. danab 1960 markii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed bataliinkii ugu horeeyay Hiilweyna laga aasaaso danab waxaa ka garan kartaan marka inuu danab weligiis ku jiray kaalinta koowaad. haddana waxaan rabnaa in kaalintiisi ku soo celino u noqdo. ciidanka Balidogle jooga oo idinka horeeyay waa ciidan la hubo oo maarta waxtar ah oo awood leh wax ku fuliyo. waxaan aaminsanahay in la mid yihiin madaxdiisana aad baan isku rajoonahay. waxaan aaminsanahay meeshii aan idinka filin iyo meel ka sarreeyay la soo baxaysan guuleystaan idin leeyahay. ugu dambeyntii waxaa munaasabada soo xiray madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf asagoona xusay ciidanka xoogga dalka waa ciidanka dalka Soomaaliya oo dhan. ciidanka saawa meesha uu jooga ayaa laga rabaa inuu difaaco. hadda adinku Galmudug inaad difaacdaan waa markay Galmudug baad joogtaan. ciidanka meel kasta loo bedeli karaa meel kasta aadi karaa laakiin meel kasta uu joogo inuu dalka si dadka soo difaaco la rabaa. wixii ciidana iyo wixii waana taliyaha soo jeediyay. anigu kaliya waxaan rabaa inaan aad iyo aad uga mahad celiyo dawladda Mareykanka iyo cidii arrintan hawshan noo fulisay dhammaantood. annaguna waxaan maaragtay aad ugu faraxsanahay ciidanka fiican oo quruxda badan noo soo baxay ayaan aad iyo aad maaragtay ugu faraxsanahay maanta. waxaan rajaynaynaa iyaga iyo kuwa kaleba inay sida ugu dhaqsaha badan u xoreeyaan dalka Soomaaliya. Caali Nurcayn warbaahinta Goobjoog Gaalkacyo.